galabta waxaa ka da'aya gudaha magaalada Hargeysa roobab waaweyn oo xooga isla markaana onkadka iyo hilaaca aad arkaysaan la soco muuqaalkan. saaxiibayaal soo dhawaada galabta waxaan ku suganahay dusha sare ee hoteelka Chess oo ah hudheel caan ah oo ku yaala gudaha magaalada Hargeysa. waxaan doonayaa muuqaal qurux badan inaan idinka duubo caasimadda iyo isbeddelka quruxda badan ee laga fuliyay isla markaana muddooyinkii u dambeeyay ay ku tallaabsatay magaalada Hargeysa. ayaan doonayaa wax badan bal inaan idinkala socodsiiyo hadday tahay wadooyinka, hadday tahay dhiraynta, hadday tahay lighting-ka, hadday tahay dhismayaasha quruxda badan ee bilicda magaalada wax badan ka bedelay. halkan baad nagala socon doontaa haddii Ilaahay ka dhigo. ballan waxaan marti kaaga ahay markuu muuqaalkan ku soo gaadho inaad subscribe, like iyo comment ii saarto. aad iyo aad baad mahadsantihiin. imikana waxaan u dhaadhici doonaa xagga hoose ee hoteelka innaga oo guud ahaan magaalada Hargeysa dhexdeeda gaar ahaan inta suuqa hoose centerka iyo meelaha wadooyinka waaweyn laga fuliyay aynu tigi doono. la soco muuqaalka markuu soo gaarno subscribe, like iyo comment ii saara. aad iyo aad baad mahadsantihiin. lana socdo Chess Hotel oo aan muuqaalkeena ka bilaabi doono kalab. magaalada Hargeysa gaar ahaan waxaad ku soo dhawaataan Hotel Chess magaalada Hargeysa. waxaa maanta muuqaalkan igu helin doona haddii Allah awoodda uu xukumo Maxamed oo ah aqoonyahanka dalka. Maxamed Jaamac Cali oo mid ka mid ah dhalinyarta ama aqoonyahanka wadankooda jecel ee ku nool magaalada Hargeysa. isbeddelka faraha badan ee aan ciina qarin karin cidna aan ka qarsoonayn muwaadiniinta reer Somaliland ee ka socda caasimadda ayaan Maxamed balgalabta wax ka weydiin doonaa haddii Ilaahay ka dhigo. dhowr su'aalood oo kooban ayaan Maxamed weydiinaynaa. la soco muuqaal. Maxamed soo dhawo walaal. wandhow hay'ad iyo dhammaan saddex Siciidow. maanta waa galab aad iyo aad soo wanaagsan yahay. haye marka waxaan jeclaystay inaan bulshada kala hadlo hadday noqoto dhanka horumarka iyo hadday noqoto dhanka wacyigelintaba waxyaabaha bulshada danta u ah inaan ka wacyigeliyo oo aan kana waraysto. marka waxa aan maanta go'aansaday inaan qodobo muhiim inaad ka hadasho inaan ka hadlo qodobo aad u muhiim ah oo ay ka mid yihiin dhanka wacyigelinta bulshada iyo sidoo kale horumarka waddanka ka socda guud ahaantiisba. sadarkayso jawigu aad iyo aad buu qurux badan yahay maanta. lama soo koobi karo marka bulshada waxaa markaasaad la wada socotaan guud ahaanba dalka waxaa ka socda horumar aad iyo aad u ballaaran. marka dhinaca wanaagsan laga eego caasimadda horumar ballaaran baa ka socda oo hadday noqoto dhanka in magaaladii leedhar loo sameeyey in ma garanaysaa loo sameeyey buundooyin badan oo biyo mareena in loo sameeyey waxyaale aad u badan. marka saad la wada socotaan waddankeena innagaa waddanku waa dan guud weeyaan waa wax aynu wada leenahay inaga dhexeeya inay iyagu leeyihiin. sidoo kale shay walba oo waddanka lagu soo kordhiyo oo horumar ah inay soo dhaweeyaan man la doonayaa jeclaan lahaa inay bulshadu samayso. marka waxaan bulshada ka codsan lahaa wax walba oo horumar ah oo waddanka lagu soo kordhiyo inay soo dhaweeyaan oo ay ma garanaysaa la jaan qaadaan baan jeclaan lahaa kulana talin lahaa. tusaale ahaan oo kale imika wadooyin baa magaalada laga sameeyey
caasimadda meelo badan oo ka mid a sidoo kale gobollada dalkuna way ku jiraan iyaguna waddooyin badan baa laga sameeyey marka dhammaan muwaadiniinta waxaan kula talin lahaa saad la wada socotaan guri walba waddo qurux badan baa imika hormarta iyo suuqa hadday noqotoba dhammaan marka waxaan ka codsan lahaa bulshada marka waddo gurigaaga ama meheradaada laga hor sameeyo waxaan kaa codsan lahaa si wadaniyad leh aan kaaga codsan lahaa in aad waddadaa ku hormarta maadaama oo mar walba ay ciid yeelanayso oo ay u baahan tahay adduunka waddooyinka waxaa loo baahan maalin walba update bay ku socdaan wax waliba update bay u baahan yihin haddaan shayga la update garayno maalin walba wax horumarin lagu samayn waxba kama hagaagayaan marka inaad maalin walba gurigaaga waddada hormarta ama meheradaada waddada hormarta inaad xaadhaa wax weyn kuma dhimayso keliya waxay soo kordhinaysaa horumar iyo bilicda magaalada kor u kacda iyo meheradaada ciiddii iyo dhaskii iyo boodhkii geli lahaa gurigaaga iyo meheradaadaba inaad ka raysato oo aad ka nasato waddadaa ku hormaraysa haddaad maalin walba xaadho oo aad sida gurigaaga dhexdiisa daaradda loo xaadho aad u xaadho oo haddii ay meherad tahayna meheradda qofka kaaga shaqeeya ee ku masaxa aad tidhaha waddadana ku dar intaa kaa horaysa wax badan ayaa isbedeli lahaa oo qurux iyo bilic aad u badan bay samayn lahayd laakiinse go'aan bay ku xidhan tahay aad qaadato adigu taasi marka waxaan kaa codsan lahaa inaad go'aan kaa qaadataan qof walba oo muwaadina oo danaynaya bilicda waddankiisa iyo quruxda waddankiisaba waxaan ka codsan lahaa in uu hortiisa marmar dhigo sidoo kale waddada laamidan anu ka hadlayaa kama hadlayo inta yare marmarka aad digta ama inta yare waddada kasoo sokaysiya gurigaaga u dhexayso kama hadlayo waxaan ka hadlaya ilaa laamida inta kugu soo beegan inaad xaadho oo aad nadiifiso oo aad ka dhigto nadiif maalin walba marka waddooyin dhammaanteeda hargeysa dhexqaada waddooyin dhammaanteeda hargeysa dhexqaada si loo dhisa heedha dalkaaga ku dhaado 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 dalkaaga ku dhaado muwaadin ku dhiiro inaad dhinacaaga inaad cashuurta ka dhiibto muwaadin ku dhiiro inaad dhinacaaga inaad cashuurta ka dhiibto muwaadin ku saaxiibayaal sadafka ka aragtaan waddadan iminka shaqa ayaa ka socota oo waa la qaaday guud ahaanba waddadii si waddo cusub oo la jaan qaadi karta caasimadda looga dhiso waayo waa road number 2 ama waddada labaad ee caasimadda waddadani iyadoo shaqadu markii hore ka socotay isla markaana shaqadeeda la hakiyey si wadda quality leh oo raandhiis iyo adkaysi u yeelan karta gaadiidka faraha badan ee caasimadda maraya ayaa waddadan loo joojiyey shaqadeeda baan filayaa kadib waddo casri oo qurux badan oo caasimadda u qalantay ayaa halkan laga dhisayaa dhinacna waddada shaqaa kaga socota inaad dhinacaaga inaad cashuurta ka dhiibto muwaadin ku dhiiro inaad dhinacaaga inaad cashuurta ka dhiibto muwaadin ku dhiiro inaad dhinacaaga inaad cashuurta ka dhiibto muwaadin ku dhiiro waddooyin dhammaanteeda hargeysa dhexqaada waddooyin dhammaanteeda hargeysa dhexqaada si loo dhisa heedha dalkaaga ku dhaado 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 dalkaaga ku dhaado muwaadin ku dhiiro inaad dhinacaaga inaad cashuurta ka dhiibto muwaadin ku dhiiro inaad dhinacaaga inaad cashuurta ka dhiibto muwaadin ku dhiiro ku dhiiro inaad dhinacaaga inaad cashuurta ka dhiibto muwaadin ku dhiiro inaad dhinacaaga inaad cashuurta ka dhiibto muwaadin ku dhiiro inaad dhinacaaga inaad cashuurta ka dhiibto muwaadin ku dhiiro
dhiiro ku dhiiro